عليكم ورحمة الله. maanta videogan wuxuu ku saabsan yahay dadka fanaaniinta dadka caanka ah ee muslimka ah dadka fanaaniinta actariinta ciyaartooyda so maanta videogan wuxuu gooni u saabsan yahay dadka Mareykanka ah oo caanka sida wanaagsan loo yaqaano ee muslimka ah so dadka kale ee sport footballka ciyaara video kale ay u hadli doonaa so videogan wuxuu ku saabsan yahay dadka caanka ah aan naqaano Janet Jackson waa naqaanaa waxa waaye Michael Jackson walaashii daraad dhow waxa ku arkay Facebook ayadoo xijaaban dhar xijaab wadato oo uur leh cunugeeda koowaad ay dhalaysaa waxay jirtaa konton maxaa la 42 sano so konton ku xira ugu dhiman cunugeeda koowaad ay dhalaysaa waxaa qaba nin muslim oo qatariyaan ah oo taajir ah saa maqlay so Janet Jackson waa muslim hadaadan ogeyn hadda kadib ogaaw Akon waa naqaanaa Akon dadka badankiisu way yaqaanaan waa nin Senegalese waana fanaan Mareykan ah Mareykan ku barbaaray Mareykanku ku noolaa noloshiisa dhan laakiin asalkiisu waa Senegalese so hadda wuxuu ku nool yahay Afrika wuxuu sameeyay hadeertaan maxaa la dhahaa Afrika wadamo badan Afrika ka tirsan ayuu wuxuu u gelinayay nalal free ah wadooyinka ayuu nalal free ku xirayay so Akon waa muslim hadaadan aqoonin hadda iska bar salaamu calaykum ku dhamarka jidku aragtid Dave Chappelle waxa waa ninka comedian waa ninkan waa shactirol dadka comedian ku waana ninka ugu jecelahay maxalla comedies hadaa Dave Chappelle comedies daawanin waxa ku talnaa YouTube inaad tagtid Dave Chappelle ku qortid waa nin muslim asna show ayuu lahaan jiray Dave Chappelle show la dhahayo hadda showgiisu uu dhamaaday so waa nin comedian asna waxaa ku xigo Imaam Abdul Majid Imaan waa naqaanaa waa gabarta Soomaaliyeed oo fashion show jiri jirtay so Imaan waa Soomaali muslimadu ay diinta bay ka bixin dad dhahaya arkay way gaalooday diinta ka baxday waa been ayada ma hadan diinta ka baxday waa mid kale magaceeda muxuu ahaa waa hilmaamay tan xumay Soomaaliga horan joogi jirtay so waa midaas mid diinta ka baxday midan waa muslimad laakiin waxay tiri ku dhaqmo diinta islaamka and practice garay diinta islaamka so dad badan oo islaam aan diinta practice gareynin aan tukanin xataa salaada laakiin islaam so diinta ma ka bixi kareysid diinta wax ka bixinaya ma laha hadaadan ku dhaqmin waxa waaye waa intaas oo Ilaahay u soo laabataa rasuulkan wuxuu dhahay kulligeen xataa dambiilayaal ayaan ahay kuwa ugu wanaagsan waa kuwa soo laabta Ilaahay u soo laabta kullu ibn aadam khataa'un wa khayrul khataa'una thawaban marka qof ma dhihi karto qofkan ma tukado gaal waayo ma dhihi kareysid diin islaamka ma saari kareysid so Imaan meesha ugu tagno Shaquille O'Neal waa naqaanaa ninkan basketball u ciyaara dadka badankiisu way yaqaanaan dadka basketballku yaqaano so Shaquille O'Neal asna waa muslim YouTube video ayuu leeyahay ka hadlaya hadda Shaquille O'Neal islaamka qortay arkaysaa sahad halkan ka arkaysan hoos waxa waaye Baptist maada hooyadiisa Baptist aan jirtay aabiis muslim oo ahaa step fatherkiisa muslim ahaa ninka hooyadii qabay muslim ahaa so inuu islaamay diinta islaamka qaatay ayaa meeshan ku cad asna uu ka hadlay Busta Rhymes asna waa Mareykan fanaana asna diinta kuma dhaqmo waxa waaye dada xataa waxay dhahaan diinta islaamka uu ka tagay laakiin sida meesha uu qar asna uu dhahay video YouTube ku arkay wuxuu leeyahay muslim ay ahay so qofka hadda muslim ay dhahay aad ma ka saari kartid diinta islaamka وانا قانا نكن كاسي كسيم أصلا هو مسلم إنه حاول عندك أنا أخونين موسيقى هيستوريان واي موسيقى عندك هيستوري موسيقى واحد دورة واي فيلم بروديس واي فيلمان تيوسو سارة and radio personality واي واحد بدنا يو خبطاني كان so أدان أخونين أصلا جوجل وكأي كرتام يوتيوب Big Daddy Kane وفنان Mareykan ah laakiin dadkii hore sideed meeyad kees jiro dadkii heesahan hip hop ki rap laga soo gaaray waaye Big Daddy Kane laakiin diinta islaamka uu qaatay dadka diinta islaamka gaar ka qaatay kamid yahay mid kale diinta islaamka ee haastan ayaga waxa waaye macnaheedu diinta islaamka darta marka ay eegtid boqol farqi arkaysa shiica balaayo waxaas arkaysa in Allah waxa laga yaabaa khaldan yahay oo san wax saxneen laakiin guud ahaan muslim uu ka yahay waxay haastan wax 5% nation la dhahayo
waa sida maxaa la dhahaa kuwan xun faaraqkan iyo diintii haastaan oo kale oo khaldan diin islaamka khalad ay u haastaan laakiin macnihii waa islaam ilaahay inuu hal yahay qirsan yihiin rasuulka inuu maxamed yahay qirsan yihiin laakiin firqa khaldan ay haastaan so asna waa muslim kan ma garanayo weligay ma arkin laakiin waxa uu qora halkan waa rapper so waa ka soconayna ma ku garanayna dheh everlast waa la yaqaanaa oo asna fanaan dadka badankood soo arkaysan fanaanay u badan yihiin laakiin markaa aragtid videoyadooda iyo waxaa markaa aragtid waxaa leedahay waxaan muslim hataa uma dhawanayo muslimnimo iska daaye waxaan gaalada nooca ugu darneed waaye laakiin mataqaanaa qofka bilaadanka waxaa waaye wuxuu yahay ma jaaj garayn karaysid Ghostface Killah asna waxaa waaye Wu-Tang groupka la ayuu ku tirsanaan jiray waa muslim asna Wu-Tang labo saddex ka mid ayaa muslim ah Wu-Tang waxay ahaan jireen group oo fanaaniin ah hadda kala burburay so asna waa muslim sa arkaysaan meeshan 2013 islaamnimada qaatay so intuu heesi jiray fanaanka intuu ahaa muslim muusan ahayn ninkan waa naqaanaa asna waxaa waaye maxaa la dhahaa talk show host waa oo TV ah Mohamed Oz allah magaciis ma qaban karin Snoop Dogg dadka badankiisu ay yaqaanaan Snoop Dogg islaamnimada wuxuu haastaa Nation of Islam kuwa la dhahayo ayuu taageersan yahay kuwaas ayaa islaamiyey faaraqaan iyo kuwa maraykanka hadeetaan diin islaamka madow kuwa diin islaamkooda waxaa kaafirnimo soo aaminsanahay sababtoo ah waxay taagan yihiin Elijah Muhammad nin la dhahay diin islaamka laga soo gaaray so diinta islaamku zaid ay u khaldan tahay culimada badankoodna waxay dhahaan diinta islaamka ma ka tirsan waxaas hadaa mar rasuulka aadan aaminsaneyn muslim ma tihid hadaa rasuulka ilaahay aaminsan tahay maybe farq khaldan ah aaminsanta shiicada iyo waxaasoo kale la mid tahay hadaadan rasuulka aaminsanin shiicada cali bin abi talib ay aaminsan yihiin sooma marka waxaa waaye diin islaamka saxan ma haysta laakiin asaga wuxuu taagan yahay muslimaaya Ice Cube asna waa muslim Ice Cube waxaa waaye NWA groupka la ayuu ku jiray fanaan waaye actor waaye filankii ugu dambeysay hadda ay soo saareen maxaa la dhahaa Niggas with Attitude filanka la dhahayo so asna waa muslim ninkan waa Jermaine Jackson waa kii walaalkiisa Michael Jackson kii dhimanay iyo Janet Jackson ka aan tusinay ugu horeys videoga walaalkood waaye asna waa muslim ninkan diin islaamka saxda ayuu haystaa video daawanay uu ka hadlayo xajka xataa uu tagay so ilaa hadda wixii uu sameyn jiray ma practice gareeyo waxaa waaye nin muslim ah Lupe Fiasco asna waa muslim sunni ah laakiin ilaa hadda waa fanaan heesi waxaas lagu sameeyaa Qusoma ramadaanka hadda lasoo dhaafay waxaa arkay soo ka hadlaya ramadaanka iyo soonka iyo waxaas so asiga familkiisa xitaa muslim waaye asalkiisa xitaa waxaa reer muslim ka soo jeeda so waa fanaanin Soomaalida oo kale reerkooda dhan islaam yahay muslimiin ah laakiin heesay wax walba iska sameeya MC Rain asna waxaa waaye kuwii hadda maxaa la dhahaa NWA uu ku jiray waxay saaxiib ahaayeen Ice Cube kii hadda ku tusinayay muslim waa ku lahaa iyo Dr. Dre dadkaas ay isla yihiin Mos Def waa muslim ninkan hadda uu iska dayaa filaya heesaha ma arkin asoo heesay dhawaanahan mana maqlin so halkan ku arkaysaan asoo yar ayuu diin islaamka qaatay so markuu 19 jiray diin islaamku ku dhaqmay laakiin fanaan ayuu ahaa ilaa markaas so Mos Def waa muslim asna Nas waa naqaanaa waa fanaaniintii sagaashameeyay dadkii hore Ilmarik albumkiisa ugu horeeyay la dhahaa so Nas waa muslim hooyadiisa gaal asaa filayo aabihiisna waa muslim mise aabihiisa muslim hooyadiisa waa gaal Mike Tyson waa naqaanaa Mike Tyson diin islaamku qaatay asna waa feeriyaankii caanka ahaa xajka asoo jooga video leeyahay jiro YouTube-ka daad qortay arkaysaa Omar Epps waxaa Mike Epps ay walaalayihiin asna waa muslim laakiin asiga afkiisa wuxuu ka qarsan inuu diinta ku dhaqmin uu macnihii khamriga waxaas iska cabo hayaacda u yahay feeling juice ninka ku jira waaye uu yaraa waqtigaas hadeertan laakiin waa nin weyn Q-Tip asna waa muslim waa soconayna daadhan waxaa waaye Rakim waxaa waaye dadkii Big Daddy Kane asiga dadkii 80 heesaha soo saaray waaye hip hopka dadkii laga soo gaaro waaye so asna waa muslim Raekwon waa ninka hadda sheegay maxaa la dhahaa Wu-Tang Clan kula dhahay groupka uu ka tirsanaay waa muslim asa
T-Pain وانا قانا فنانين تحت دو واي مسلم واي لكن